sheekadan waa sheeko aad iyo aad u naxdin badan una la yaab badan. Sheekadan waxay ka dhacday dalka China. Lamaanahan ayaa isguursaday, yacni ninkan ayaa gabadhan ka helay kadib waxa uu soo bandhigtay guur, wayna isguursadeen, waxayna u dhashay 3 caruur. Haddaba sheekada intay ka xumaatay in la isguursado ma xuma, caruur in la isku dhalan ma xuma. Sheekada waxay ku xumaatay oo gabadhaana lagu xukumay $100,000 waxa keena waxay tahay markay isguursadeen kadib waxa ay dhaleen 3 caruur. 3dii caruur ayaa noqday kuwa ilaa dhamaantooda iyo kuwa afqaloocan. kadibna ninkii ayaa shakiyay, waxaan uu dacweeyay, yacni waxa uu bilaabay inuu baaritaan sameeyo. kadibna baaritaankii uu waday kadib xaaska ayaa sir ka fakatay oo waxay sheegtay in hadda ka hor ayadaba aysan ahaan jirtay, yacni ay qaliin isku samaysay, ay isqurxisay, ay ilmahan uu qurxiyo qaliin uu geeyo ayay u sheegtay. laakiin kiiskii ninkii waxa uu la tigsaday maxkamad haweeneydii uu qabay. kadibna dacwad dheer iyo dood kadib ninkan waxa uu sheegay inay khiyaantay naagtan, qurux aysan qabin ama aysan u dhalinna ay u muujisay, yacni umana ay sheegin, yacni imana ay sheegin buu yiri in ay markeedii hore ay illa eed naagtan mis afqalooneed, yacni aysan quruxdan aysan u dhalanin ima sheegin ayuu ku dacweeyay. kadibna maxkamadda waxay u qaadatay in arrintan ay tahay arrin khiyaano ah oo lamaanaheeda in ay khiyaanta haweeneydan ayaa lagu xukumay. kadibna maxkamadda waxay magdhow ahaan ay ugu xukuntay naagtan in ay bixiso, ay siisan ninkii ayada qabay ee 3 caruur ay u dhashay lacag gaarayso $100,000 in ay bixiso oo magdhowa oo ninkan lagu raaligeliyo, maadaama aysan guur ka hor aysan samaynin qoftan daahfurnaan iyo in ay wax walbo ay u sheegta ninkan, maadaama ay nolol ay wadaagayaan. sheekadan ayaa ka bara karnaa qof walba oo qurux badan, gabar walba oo dhalaalayso laga yaabo inaysan quruxdan u dhalanin ee iska yacni ha ku degdegin macna ayaa ka bara karnaa. gunaanadkii gabagabada muuqaalkan, haddii aad sheekadan la yaabtay ama aad ka heshay, fadlan like saar videoga, sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe and follow.